Assalaamu calaykum walaalayaal soo dhawaada maalin kale oo vlog aan soo dhigayo Ramadan daily subxaanallah waxaa imika soo galnaba 10kii cishood ee Ramadaanka ugu dambeeyay so inshallah ka faa'iideysano maanta vlog waa vlog iska simple ah cuntaan karinaya guriga hagaajinaya sharaxaad jadiidana way timidaan tusaya so waa kaas daawasho wacan سواكاس oo maanta horta waxaan ku bilaabayaa shaahii subaxda waxaysanaya waxaan yar tusayaa spices cajiiba gabadha Soomaalida London gasha aan ka iibsaday Oops Spice waxba la radaa Instagram-ka waa ka heli kartiin Oops Spice hadaa qortiin ama Facebook mashallah wallahi wa everything is already made wax kasta isku laaqsan yahay shaaha uma baahninta kun spices soo qaado waa already mixed kii cambaburkana waan ka soo qaatay iyo bisbaas iyo alaabtii xawaashkii la isku laaqay marka bariiskana karinaysay wax kasta mashallah so imika waa kaas shaahaygi baan sameysanayaa spices ka waan ku daraya iyo shaahi madoweysida waa kaas quraacdeedii maaha waa bulletproof coffee-gayga saba subaxdii markaan soo kaco ama kaniba cabi ama matcha ama coffee sina fudanaso so waa kaas shaahayga waa diyaar caano yar baan ku laaqi doonaa sidee u taqaanteen de so imika pampas grass baa imaaday aan ka dalbaday Mareykanka because xaggan waan waayay wax quality ah Austin waan soo dhigay dad doonaysa iibsatiin iska qaali buu ahaa because waa inta Mareykanka laga soo diraa laakiin waa very very good quality wuxuu ku haynaa wax in badan ah 3 sanadood because pampas grass ku xumaada in the long term so waa kan sidaa baan ku tijaabiyey ima cajabin so waxaan u dalbaday bukleer baan dalbaday vase yaroo cadaan oo dee isku geenayo dee si qurux badan usoo saaraya because kani waxaa saan u arkayo vase uu ka wen yahay so kaanu iman doonaa inshallah waan tusi doonaa markuu imaado iyo sharaxaad kalena guriga waan soo iibiyay ay cake soo iibiyay waa kaas imikana waxaan bilaabanaa cashadii ama qadadii so subaxdii ma isdhaafiya cuntada la karinayo waa markuu odaygu shaqeynayo oo ilmaha yar aniga haya subaxda oo dhan so intuu iska ciyaarayo markaa madbaxa ku jira hadaan nadiifinayo ama adu shaqada badanka oo dhan subaxdii ma isdhaafiya so imika waa kan wasaabaan gogoon doonaa kalluunku wuxuu fiican yahay wax kasta marisidba si qurux badan uu soo baxaa anigu recipe uma leeyahay kaaseerku ma furadna mayo helo ama soy sauce walaa wax kastaba kalluunku si qurux badan uu soo baxaa maalin baa jirta bas mariyo lindanaan milix iyo filfil markaas saababa ku dhantahay oo si qurux badan u soo baxdaa air fryer kagaan gelin of course wax kastaba air fryer kagaan ku kariyaa because uma baahnid inta la socotid si qurux badan buu kugu soo saarayaa macaan oona ma engejiyo cuntada engejiyo maahe waxaan u jeedaa nacam engeg kama dhigo cuntada because ovenka kolkol markaan geliyo xoog wuu karsamani ama ready maaha kani waa gelinaysaa timer kuma gelinaysaa waa iskaga tegaysaa isaga keligii baa isjoojinaya so waa kaas imika mixkan waxaan waa mayo oo mustard lagu laaqay kani waa nando sauce glaserka ku hayay maba xasuusanay waxaan ku daray saan u arkayo milix iyo filfil waaba intaaba waan u malayaa wax kale aan ku daray ma jirto iyo waa ka toontii oo powderka iyo filfishi saas markaan isku laaqo waan marin doonaa haddaad doonaysiin inta si fiican u galo waa sii marin kartiin 30 minutes later waa karin kartiin but anigu waxaa isugayaa intaan office-kayga maanta nadiifiyo so waxaan doonaa intaan markii laata isdhaafiyo sidaas so waa kaas imikana waxaan gelin doonaa air fryer-kayga intaa bay ku dhan tahayba
wakaas imika waxaan gelinayaa air fryer-ka setting buu iska leeyahay marka kalluun karinaysid so setting-kaas uma aan ku xirayaa waan intusi doonaa bar so menu-ga taabsanaysa wakaas cake-na waa lagu karaya weli kuma tijaabin furon chicken wakaas kalluun 10 mirir buu si qurux badan oo diyaara kugu soo saaraya so sidan buu igu soo baxay amazing salmonku waa xawayaan full of good fat omega 3 so you know badsada haddaad badsan kartiin so imika maanta waxaan doonaya intaan kala nadaamiyo office-keyga so maqsin dusha gurigu wuxuu leeyahay 3 maqsin hoostana maqsin kalaa jira basementka so basementka maqsinka ku jira odagayga wayaan isaga office-kiisa anu dusha buu office-keygu yahay sidaa u arkasiin wax kasta alaab baa ka buuxda waayo consultation-ka xagga baan ku sameeyaa YouTube videos-keyga xagga baan ku sameeyaa haddaan waxaanay conference call xagga baan ku sameeyaa cashirkeyga because certification-keyga waan dhamay laakiin waxaan weli wadaa maxaa la radaa specialization so xaggan baan cashir ku dhigtaa so buugag meel kasta daf so waan kala nadaaminayaa waxaan siri meel size isku dhex taala horta lagumaba shaqeyn karo so saabaan kala nadaaminayaa miiskana arkaysiina waa miis mar hore aan soo iibsaday aan ka celin waa ma celin karo laakiin waan iibin doonaa Facebook marketplace insha Allah xaga ma ku iibiyo alaabta badan markaan iska doonata iska bedelo waayo miiskan waa qurrad oo de xoogna u weyn yahay markastana bilaa macno saabu ustago wax kasta baa mar so ku yar baan soo iibsan doonaa insha Allah office-keyga kolleyba waa intaa decoration uga sameeyaa but sugi doonaa guriga weli ma dhameyn decoration-kiisa but waa kaas meel kasta waan buufiyey xaggaaba nadiifin doonaa rabadaankana markuu dhammaado rabadaan daily iminka 10 cishood baaba noo haray waxaan nii soo wadaa insha Allah house tour dad badan baa weydiistay house tour waxaan doonaa intaan sugo intaan gurigoo dhan horta sharaxo ba weligeed horta maxay imse sanaad bay iga qabsan doontaaba intaan guriga nadiifiyo intaan guriga sharaxo ma dhawo so main level-kii waan dhamay sharaxaadiisa alaab yar maan sugayaa marka alaabtaa dhigdhigo ciida dabadeed insha Allah waxaan nii soo dhigi doonaa house tour so wakaas dhakan kalena waan hagaajinayaa xaggaas warkasiin all of my certifications baa yaala diploma inta sanadooda jaamacad dhigtay hadda lasoo tiriyo maanta malaha dhakhtar baan noqon lahaa baan umaleeyaa barwaakaas xaggaa baan dhigdhigaa because you know waxana wax ku dalaashay you have to be proud of it bugagayga oo dhan xaggaa baan ku xareeyaa so bas meesha waan kala nadaaminayaa iyo alaab badan ba awal yaali jirtaan ka kala xireyay waatan nasteexo 2017 markaan jaamacadda maaso degwigayga dhameeyey so wakaas alaabta saama kan kala hagaajiyo waan masixi doonaa vacuum baan marin doonaa kolley waan iloobi intaan ay sheego but videoga hadayna cajabisay please like iga iloobina aad iyo aad bay caawisaa subscribe-kana i taabsada insha Allah iyo kusoo biirana channelkooda share garaya insha Allah so waa kan imika vacuum-ka ma marinayaa Dyson my favorite vacuum waayo fish uma baahno waa charge-guma gelinaysaa saas baa meel kasta guriga isdaba sidii karta baalka yar xagga ii yaalana waa ilmahayga yar baa aan dul dhigo imika wuu ka weynaaday laakiin xaggaa baan dul dhigaa markuu soo kaco dee weli aan shaqeynayo xagga yar maan dhex dhigaa ama dhulkan kolkol u dhigaa alaab because imika wuu gurguurtaa bas waa kaasba video xagga baan kusoo dhammeynay haddayna cajabisay like iga iloobina subscribe-ka insha Allah waa noo beri tooley closing haul maca salaama walaalayaal